بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان الكريم dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogside xafiisyada waan dhaliilay uma wada dhami qarbaan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wada dhami qarbaan dhaliilay waa habeen markaa ay jimco soo galayso khamiisna dabcan ay sii hadaafayso taariikhduna ay markaa ay ku aadan tahay 30 bisha abriil sanadka 2020 qodobada xiisaha leh ee markaasi barnaamijka xogsida dhegeystayaal caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka waa iraahdee ku dhawaad 20 xaaladood oo cusub oo markaasi COVID-19 ah ayaa markaa dalka laga diiwaangeliyey 24kii saac ee markaasi la soo dhaafay iyadoo markaana ay jiraan dad ka bogsaday cudurkaasi haddaba markaa warbixin ay dowladdu markaa ay soo saartay ama wasaaradda caafimaadka ay soo saartay oo markaasi ku saabsan coronavirus iyo xaaladihii u dambeeyey dalka ayaa barnaamijka caawa xogside ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi deeq raashin ah markaa u qaybisay macallimiin iyo markaa imaamyada masaajidda ee magaalada tan Muqdisho haddaba qaabka markaa ay markaasi ay u dhacday deeqdaasi raashinka ama dawladdu ay u qaybisay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan iyo dawladda oo markaasi ka mahad celisay iyo ciddii markaa qayb ka qaadatay deeqdaasi raashinka ah ee markaasi macallimiinta iyo imaamyada masjidda Muqdisho qaar maantay wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay markaa gaarsiisay barnaamijka xogsida qodobada kale ee caawa markaa aan idinku haya dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda Uganda ayaa markaa ka hadashay xaaladda askari ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo markaa laga helay coronavirus iyadoona markaasi afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in qofkaasi xaaladiisu ay markaasi sooreynayso haddaba meesha markaa askarigaasi uu ku sugnaa iyo halka markaa uu ku dambeeyo askarigaasi AMISOM ka tirsan ee markaa COVID-19 laga helay ayaad ku maqal doontaan iyo markaasi xaaladihii u dambeeyey oo warbixin ay ku saabsan ayaan barnaamijka markaasi idinkugu hayaa dhegeystayaal madasha xisbiyada qaran oo markaasi caddeeyey sababta markaa loo joojiyey shirweynahoodii oo markaa dabcan ay qabsan jireen ayaa barnaamijka ku maqli doontaan haddaba sababta iyo xaaladda markaasi ka dambaysa in shirweynahaasi ay markaa madasha xisbiyadaasi qaran ay joojiyaan maxay tahay waxaa sidoo kale barnaamijka xogsidii caawa qodobada kale aad ku maqli doontaan ka mid ah qarash markaasi ku baxay diyaaraddii markaasi tagtay magaalada jowhar ee markaa gobolka shabeellaha dhexe oo ka badan agabka caafimaad ee hirshabeelle markaasi la siiyey wararka u dambeeyey ee markaasi diyaaraddaasi ka degtay jowhar iyo markaasi oo la sheegay in agab fara badan oo markaa la gaarsiiyey jowhar ayaa barnaamijka ku maqli doontaan waase maxay tahay sababta markaasi agabyadaasi faraha badan COVID-19 loogu talagalay loo gaarsiiyey magaalada jowhar ama hirshabeelle qodobada kale ee barnaamijka caawa xogside royal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland ayaa markaa war ka soo saaray xaaladda qardho iyo markaa gurmadka ee halkaa ka socda haddaba warka ay ka soo saareen waa maxay maxuuse yahay barnaamijka ayaa ku maqli doontaan war saxaafadeed ayayna ka soo saareen oo maantay ka soo baxday Puntland qodobadaasi iyo dabcan inta barnaamijka uu socdo wixii nagu soo kordha oo dhacdo ah ayaa idiin soo gudbi doonaa dhegeystayaal ama idiin faahfaahi doonaa qeybaha dambena waxaa ku maqli doontaan barnaamijka xogside Come
waa tahay qasiidadaasi bisha barakeysan ee Ramadaan markaa loogu talagalay ayaan ku soo gabagabay doonaa waa qaybta markaa ugu dambeeysa barnaamijka ama daqiiqadaha ugu dambeeya waxa barnaamijka caawa soo saaray oo inaan socodsiinaya dhageystayaal anigoo ah Abdirisak Maxamed Xasan barduuro dhanka farsamadana waa Cabdi Fataax rashka waa mar kale iyo barnaamijka xogside Royal